إلهي ومحدثكاله مد اللواتنا وحاله رجعي سياسة وسنجلي أيضا كاس سيدا شرفت عليه كرامة عليه مجلس ولقي تشردونه لما قوان كاقعتي مركي اللي يرجوريه إن سوقه دبادنا أرين أدق وشرف يا كرامة له وعد والبقى عقل له ودت كنا كمده أي ماشي شوغان با دعاء iyo gobaadin ba u direen ciidanka warsangeli oo qaatay sharaftaas aad baan u soo dhaweynaynaa aad baan u taageeraynaa dadka iyaga qurba joogta warsangeli meel u joogoba haday tahay North America haday tahay Europe haday tahay muxuu ahaa Canada muxuu ahaa inta warsangeli joogo oo dhan haday tahay Carabaha aad baan loo taageersan yahay waana يعني aad baan u taageersanay beelan joognaba waana mahadsantihiin anaguna arinta nagu beegan oo sharafta badan aad sameeyseena qayb weyn oo qayb libaaxa wixii nagu beegnaayo waxaanu ku sii daraba baanu ka qaadanaynaa حدنا شربان ولينا هاي صوصة تهدي الله يراهدو ما شاء الله يراهدو نور أمريكا يو أنت كلاو يرنا لقب طبعا يدنا أنت عسان كسو قابلنا وأنا مهتسنتهين مرتين هذه من بدن هذه عاد بدو مهتسنتهين هوش عاد قشين يوم دا صوتنا لبضبا ورسنجلنا ومدوبين ما أنت ميلو تشوجبا وفرتاس ويه وانا مهتسنتهين كاتو سينتا أدوك شيء واحد بدن كدر منه وحوي جارية دودن كنجوكتا نورث أمريكا أردن وحي قوان كوغارتي إني تاغيرا وين يهمبليو يبوغادين سيسو dadkii geesiyaasha oo goostay inay maanta dhulkooda u dagaalamaan aad iyo aad baan u bogaadeenaa u soo dhaweynaynaa maamulka Hargeysana waxaan leeyahay waxa weeye arinta dib uga noqda oo dalka nabadda ah oo aan colaadu jirin oo dhibaatadu jirin dhibaataha ka abuurnina dhulkaas horena looma qabsan dibna looma qabsan doono intaasaan idin kale idin lahaa inta odagu ku daray oo yirina waxa weeye shir guud baa dhacaya oo ummadda gobolka ka soo jeeda khaasan gobolka Sanaag Highland iyo gobolka Bari galbeedka Bari ummadda ku nool shir bay galaysaa shirkaasna waxba ka soo bixi doona wanaagsan iyo taageero iyo hiilo iyo gacan iyo wax walba ka soo baxayaan intaasaan oran lahaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامك بعدي وعن هالك المهد وقدريا أو جمهد علينا كسياسي جوشة وين إمانتا لقول شوجو سوهوي والرجل يدمر بله أيان مهد وعليه مهد إلهي باسكله wuxuu yiri nimba wuxuu yiri wiilkiisiba wuxuu wiilba aabihi wuxuu ku yaabay san xabada uu galay ninka ugu sigay markaas aabihi wuxuu yiri halkaas uu gala sii dhawaato waa halkaas oo aad ka sii kordhisaan oo uga sii dhawaataan ilaa dalka aad maxaan ku yiraahdaa gacantiina ku wada dhigaysaan nimanka ay nagu soo duulay oo gardarrada inoo ku soo duulay oo inala doonaya dhiiga oo dhiigana doonaya inay banaystaan inagana inuu istilo doonaya inaad ka hortagtaan waajib weeye waana ka hortagteen aad baa ugu mahadsantihiin boqolkiiba boqol annaga taayada markaan u soo noqdo qurba joogta haddaanu nahay waa idin garab taagannahay hiil iyo hooba waa idinku garab taagannahay insha allahu biidnillaahi kariim arrinta tanina waa arrin xaqa waa arrin diinteenu ina farayso culimada iga dambayn doonta oo sheegi doonta kelmadii diinta inaan anigu halkaa kusii dheeraado ma rabo laakiin waa wax waajiba inaad istifaacdo haddii maatadaada lagugu yimaado xaq baad u leedahay dembina kuma aad qabtidaad sida odayaashu yiraahdeen mandaqada tan weligeed lama gumaysan
weligeedna lama xukumin insha allahu dib dambena loo xukumin maayo dib dambena loo gumaysan maayo waa mandaqad la oran karo waa reer Madiina waa dadkii reer Madiina ee nabadgelyada iyo maxaan ku yiraahdaa ixtiraamka iyo boqortooyooyin soo jireen ay isaga dambeeyeen oo Soomaali oo dhan ay wada garanayso marka ninka ku soo socdo ama doonaya inuu holiyo ama intuu xoogaa lacagta iska dhamayn waxaan ku oran lahaa lacagta iska dhamayn dad lacag lagu qabsan karo mihin aad iyo aad ayaanu waxyaabaha ka socda ula soconaa cid wax nagu sameyn kartana ma jirto annaguna waxa weeye xaq baan u leenahay inaan dhulkayaga iyo dadkayaga difaacano xaq baan u leenahay waxaan hadalkayga ku soo gabeeyay garabkiina Allah galo wixii cadowgiina Allah qabto anana weydin garab taaganahay nagu tashada shirar badan oo hadda socdaana waa jiraan si dhaqsalana waxaan ku yiraahdaa waynu u kala warheli doonaa insha Allah biidmillaahi kariim haddana waxaan ku soo dhaweynayaa sheekha oo kelmadda ugu dambaysa jeedin doona insha Allah biidmillaahi kariim خير بارك الله فيك جزاك الله خير بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان إن شاء الله إلهي سبحانه وتعالى أيام هذا السكالة مركو وغوريسو مركو اللبان دوحان مهات كل يلاب كسو قاضي عن أجهدين يا ولا لها مارتي منطقة مارتي سناق ciidankii iyo maarta dhammaan shacabka meesha degan oo dhan runtii arintaasayda aad iyo aad ayaan u taageersanahay boqolkiiba boqol arinta aad samayseen geesinimada iyo cizada iyo sharafta iyo wanaaga idinkoo maartay difaacanayo dee nafsadiini difaacanayo maartay difaacanayo xoolihiini difaacanayo caruurtiini iyo xaasaskiini idinkoon cidna duulaan idinku ahayn laakiin duulaan idinku yahay taana waxaa weeye nabi sallallahu alayhi wasallam waxa uu leeyahay man qatala duuna nafsihi fahuwa shahiidun man qatala duuna maalihi fahuwa shahiidun qofka haddii uu dhinto asaga oo u dagaalamaya nafsadiisii iyo xoolihiisii iyo gurigiisii iyo caaliyadiisii iyo caruurtiisii dee xaq wuxuu u leeyahay inuu isdifaaco marka arintaas iyada ah waa arin diiniyan ah oo aad xaq u leedihiin marka waxaan idinka codsanaynaa dhammaan inaad u midowdaan oo aad gacmahaas qabsataan oo markaas iyada aad nafsadiinni aad difaacataan annaguna haddaanu nahay jaaliyadda maakhir North America waan idinku taageersanahay waan soo dhaweynaynaa waan idin hambalyeynaa arintaas iyada ah sida geesinimada leh oo sharafta leh oo dadnimada leh oo kartida leh aad ugu istaagteen oo uga dhidhiseen runtii aad iyo aad baan idinku hambalyeynaa meeshana ka sii wada midnimadaas iyada ah oo hadda dhaqdhaqaaqa hadda bilowmay midnimada aad muujiseen inaad xoojisaan إلهي سبحانه وتعالى وحوله سورة عمران يا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا يعني كم ذوبا أو ما أرتي محل راح كوكا لتجينا مركا أرنتا وحل دوني يعني من ماذا عاد إلى لسان منطقة يا مارتي من ماذا منطقة عاد إلى لسان أو كم ذودان إذن كو دفاعنا يو دلكيني يو دلكيني يدكيني يو دينتنا لبضة بدفاعنا يدولان إذن عندنا كواهن وعمدك وبعد runtii aad iyo aad baan u soo dhaweynaa arintaas iyada qodobka labaad anagu idin kama harsanin shir baa inta lagu jiray oo qabanqaabada shirka inta waa socday marka sheekh shirar badanna way dhaceen midna waxa loo baleysan yahay sabtiga soo socda hadii ilaa yiraahdo ahad soo socda ayaa loo baleysan yahay gobolkan Minnesota ayuu ka dhacay Minneapolis waxaan jaaliyada ogeysiinaynaa oo cilaan inaga tahay ogeysiis inaga tahay dhammaan axadda soo socota inay ka soo qayb galaan shirka asaga loo balansan yahay rag iyo dumar meel kasta oo la joogo weyn maartay laga yimaadaa laga soo qayb galaa waxaa laga tashanaya oo laga arinsanayaa arinta mandaqada ka soo cusbaanaatay oo qof walban uu ogyahay ayaa laga hadlayaa marka cidna oo ma maqna cidna oo ma qodne waa in dhammaan laga soo qayb galo way shirka asaga insha Allah hadii la yiraaho waana axadda soo socota oo bisha ay tahay 16 dariskana waxaad ka arki doontaan shaashada insha Allah hadii la yiraaho taa marka waa ogeysiistan u jeedinayna dhammaan jaaliyada maakhir meel kasto ay joogto gobolka Minnesota axadda soo socoto in shirka asaga ay ka soo qayb galaan insha Allah hadii la yiraaho qodobka koobaad qodobka labaadna waa taageero iyo hambalyo iyo heel iyo hoo aan la garab taaganahay walaalaheena maartay maakhir maartay insha Allah ciidankii gaar ahaan iyo sida looga dhiidhiyay iyo sida loo garab istaagay dhammaan boqolkiiba boqol insha Allah waa taageersanahay wajazaakumullahu khayr